sida gaarka loo xusay macnaha ciidamada laftigoodu ciidan xoog leh uu ku jiraa ciidanka oo dawladda qaabilsan kii beeleedna waan soo wadnaa isaga iyo taakuladiisa haddii rabbidan ka dhigo waxaan diyaar u nahay mar kasta mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba difaaca dalka dadka ku soo duulay inaan laga safeeyo ilaa aynu kii u dambeeyay soo qabanana aan laga harin waxaanu keennay 100 wan iyo waxaanu keennay 20 geel ah إن شاء الله كي كوارنا نقول ميسو كي لبعضنا نقول ميسو كي استحالنا نقول ميسو لما أنت وحرمنا نقصو قيب دلو هدي ربينا كديقو أنه هيجا المركز توا دفاع عدلك يددك يدينتا انتبا سلم warkii odayaasha dhameeyay aniga kaliya waxa iiga furan sida ay sheegeen way xoolaha 20ka geela ah iyo 100ka wan oo aad indhihiina ku aragteen oo sharafta leh wixii maanta aan ugu talagalnay inaan bixino way waana markii ugu horeysay beeshu si gaar ah ay ugu wareejisay ciidamada ciribtirka argagixisada ee buuraha Calmiskaad waana wadaynaa insha Allah taala sida ay sheegeen difaaca gobolada oo dhan waa degan yahay waxaana marxaanti u ah magaalooyinkaas oo dhan inay wax ku bixiyeen xoolihii laga keenay Buurtile oo waxa la socday nin xildhibaan walaha deegaanka ah iyo maayirkii baa keenay oo wareejiyay taasa marxaanti ugu filan meel walba oo ay joogaan sidaas ay xoolaha ugu darayeen degmooyinka tanna waa tii koowaad insha Allah taala sida wadaashu ballan qaadeen waa wadaynaa inta howlgal ku socdana joojin mayno diyaar baan u nahay inaan tirada ka badan keeno insha Allah taala iyo intii kale oo ka qayb qaadatay oo beelahay waxa kale oo farxad leh qolo kasta oo hadasho waxay dhahaysaa maaha kuwii ugu dameeyay waanu soo wadaynaa waana istaba joog oo ka mahad celinaa beelaha say dadku gogolan yihiin u dihin diyaar ugu yihiin naf iyo maalba inay arrintan ku huraan Cabdi Jamaal saaxiib wuxuu yiri maanta أول دقمة lagu wareejinayo xoolaha gobol hadda beel baa la isula imaanaya beel kasta wax la horariya hawshin beelaha saada la baasaas la isku tirin doona hadda waxaan u maleynayaa waa beeshii afraad baan u maleynayaa beelaha inta shakhsiyan gurmadka ku bixisay beelaha magac beeleed oo uga mahad celinayna waqti gaaban oo raahdi gaaban baa la yiri 10 wan oo maxaan ku dhahaa waaweyn oo reer sanaaga hadde waa in ka gudoonay iyo 20ka geel ah intii kalena waan ka sugaynaa waana mahadsantihiin waxaan ka mahad celinaynaa beesha idifacda oo runtii sida uu sheegay wasiirka iyo odayaashu gobolada Puntland degan bari ilaa mudug intaba degan runtii meelaha hadda hawsha ka socoto degan gobolka bari runtii ogaalkaygii haddaan wax qaldo kolleyda media wala iska qabsan laakiin ogaalkaygii wax raacayaa ogaalkaygii niman dhiifoon oo runtii deegaanada nimanka hadda ay joogaan deegaanmo kole aan tuuladooda iyo deegaankooda la degin baan ogaay waagii aan horaan dagaalka la galay waa ka caganayeen nimanka la yidhaahdo daashtu ma aqaan gadaal haddana ka dulaysan niman adag oo runtii diiday in deegaankooda galaan bay ahaayeen uga mahad celinaynaa haddana isgarab istaaga soo garab taageen ciidamada dagaalamaya ka dagaalamaya Calmadow la dagaalamaya argixisada ku soo dishay Puntland garab istaaga hantida ay keeneen runtii beelahaan waan leenahay oo ku mahadsantihiin oo dhan xoolo dhan geel 20 ah iyo 100 wan oo ila ah oo laga soo galay sanaag waxa weeye ilaahasna waa fiican baleedo ka ilaha malaha ayaxda iyo sanaagtaas midaan ma ee goor Soomaalidu wax ka sheegayso xoolaha idaha marka ugu mahad celinaa beesha runtii waxaan ka guddoonay dhan ay guddiga galabta bishu ay tahay 16 bishii labaad oo 25 waxaan ka guddoonay xoolaha 20 geela iyo tirada idaha ah waxaan leenahay beesha waa ku mahadsantihiin beesha ka soo dhaleelahay bedel khayr qaba haynu ku celiyo waxay kaloo rag dheer yihiin in ciidamada ay kamid yihiin dagaalamaya oo dadreer Puntland beelbeelaha kamid ah weeye oo ciidamada ku jiraan laakiin mid gaar ah ballan qaadeen oo beelahaan oo ciidan ah taas farxad weyn ah oo runtii geesinimo ah oo eegis ah oo runtii aan dareemayno beelo xooleyno keenayeen ciidan oo ballan qaadeen laakiin anaga ciidanka ballan qaadka ciidanka xujintaan waa ka sugaynaa waa la haya waa aad u mahadsanyihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa ciidamadan ilaahay guul siiyo wuxuu dhintay Allah u naxariisto وحنو سرايا وصلاة عميش الله عافيه كي حنو كرحيو الله عافيه
inta hadhay iyo waqtiga xalana guul baa ilaahay uga rajaynayaa ciidamada iyagoo xijaaban oo waxay daawan oo nabadgelyo ah inay guulaystaan oo cadowga dalka kusoo duulay ee meesha ka soo ciribtiraan baa ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bishan shabcaan oo barakaysan iyo bisha rabadaan oo runtii bil muslimiinta meelo badan u leh oo cibaado ah inaan ilaahay kaga isku darin dagaal iyo cibaado oo cibaado noo khaas yeelo si aan u cibaadaysano in ilaahay muslimiinta meesha gashay ilaahay nooga fududeeyo inta rabadaanka hadhaba ilaahay ka barya